KNN. الله أكبر. dalkan waxaan ka raadinayna waxay tahay in la xoojiyo midnimada iyo xorriyadda ummadda Soomaaliyeed. Cabdiraxmaan baa tusaale u ahaa. dalkan waxaan u taaganahay habeen walba u soo jeednaa in qabyaaladda qarannimo lagu bedelo. Cabdiraxmaan xooj Jibriil baa tusaale u ahaa. dalkan waxaan ka shaqaynaa in shuruucda Soomaaliyeed sareynteeda laga shaqeeyo. Cabdiraxmaan baa aasaas u ahaa. dalkan waxaan ka shaqaynaa in dastuurkiisii la dhammaystiro. isagaa ahaa aabbihii shaqadaas hayay. dadka Soomaaliyeed inay isugu ka mid ahaadaan Cabdiraxmaan baa isagana tusaale u ahaa. musuqmaasuqa in laga fogaado Cabdiraxmaan xooj Jibriil ayaa aasaas u ahaa. marka ay khatar timaado oo dadka qaar ay caadifadoodu shaqayso Cabdiraxmaan baa maskaxdiisu shaqayn jirtay Allah u naxariistay oo dhihi jiray waa in shuruucda dalka iyo dastuurka la ilaaliyo. dowladnimada Soomaaliyeed waxaa aasaas u ah qof mar walba fikirkiisa cabira. wuxuu ahaa ninkii naga baxay Allah u naxariistay qofan fikirkiisa la gamban. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan u sheego qoraalkii ugu dambeeyay Cabdiraxmaan xooj Jibriil oo aniga ii soo diro waxa uu ahaa khudbad uu jeediyay madaxweyne Mareykan oo dhahaysay haddii aad Faransiiska tagto Faransiis noqon maysid, haddaad Talyaaniga ku noolaatidna noqon maysid Talyaani, haddii aad meel walba tagtid ood ku noolaatidna ma noqonaysid waddankaas. marka ugu dambeeya waddankaada ayaa waxa uu ahaanayaa waddanka aad laga rabo inaad waddan ka dhigatid, inaad waddankaada jeclaatid, in dowladnimada la oogo. wuxuu iigu soo dirayay uu ii sheegay ra'iisul wasaaruhu maanta ayaan fursad haysanaa waa inaan Soomaaliya sharafteeda iyo karaamadeeda soo celinaa. waxaa kaloo rabaa hadalkii iigu dambeeyay oo aniga asagoo isla fadhino oo aan ku wada hadalnay waxa uu ahaa Soomaaliya way daashay. qabyaaladda iyo xukun jacaylka iyo laalaabka aan meel iska dhigno, aan ka shaqayno mustaqbalka dhalinyarada soo koraysa si aan ugu samayn lahayn dalkii ay ku noolaan lahaayeen. mar labaad waxaan leeyahay qoyskii Cabdiraxmaan uu ka baxay waan ogahay inay xanuunsanaysaan, waa idinla xanuunsanaynaa, laakiin waxaa ogaataan haddii qof Soomaaliyeed uu sharaf soo hooyay aabbihiin iyo walaalkiin wuu soo hooyay. annaguna waxaan idinku caawinaynaa inaan idinla ducayno. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.